ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka madaxda IGAD oo ka furmay dalka Djibouti maxaa ka jira in hadal kulul ay isdhaafsadeen madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta koor inta uusan shirka furmin maxaa keenay in shirka uu waqtigiisa kadib dhaco xogo iyo warbixino ayeen idinkaga haynaa رئيس الوزراء أبي أحمد oo shaaciyay inuu kulan gaar ah la yeeshay madaxweyne Farmaajo ka hor shir madaxeedka IGAD hadaba maxay ka wada hadleen maxaa ka jira in Abiy Ahmed uu taageero u muujiyay madaxweyne Farmaajo xildhibaan Mahad Salaad oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Farmaajo xilli uu ka sii daray xiisadii maalmahan ka taagneed magaalada Muqdisho wararkeena kalena waxa kamid ah dawladda federaalka oo maanta ciidamadii ugu badnaa oo commandos ah ka dejisay gobolka Gado maxaa ka jira in ciidamadan ay weerar ku qaadayaan maleeshiyaadka uu hogaaminayo wasiir Janan madaxweyne Farmaajo oo fariin hambaliya u diray ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo maanta u dabaaldegay sanad guuradii 77aad ee ka soo wareegatay aas-aaskoodii iyo warar dheeraad ah oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana habeen axad ah 20ka bisha 12aad ee December sanadka 2020 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawade ka qayb qaado dib u dhiska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taas nala fahantaan ee fadlan nala faafiya wararka oo gaarsiiya saaxiibadiina idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada mahadsanidin aan ku bilowno wararkeena shir madaxeedkii urur goboleedka IGAD ayaa waxa uu ka furmay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti shirka waxa furay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdouk oo ah gudoomiyaha sanadkan ee madaxda urur goboleedka IGAD Abdalla Hamdouk ayaa ka hadlay arrimaha horyaala oo urur goboleedka ay markaasi isaga kaashanayaan abaaraha iyo la dagaalanka ayaxa iyo saameynta COVID-19 wararka shirka laga helay ayaa sheegaya in ay soo hor fariisteen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigiisa Kenya Uhuru Kenyatta oo halkaas ku wada sugan labada madaxweyne ayaa waxa isu keenay oo kulankooda goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo isku dayaya inay xaliyaan xiisada ka dhex oogan kulanka ay Abiy Ahmed iyo Geele isugu keeneen labada madaxweyne ayaa lagu dhexdhexaadinaya khilaafka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya labada dal kadib markii ay Soomaaliya xiriirka u jartay Kenya kuna eedeysay faragelin qaawan ka hor inta uusan furmin shirka waxaa jirtay buuq hareeyay oo ay madaxda Soomaaliya iyo Kenya isku maandhaafeen iyadoo la soo tabiyay in hadallo kulul ay markaas isweydaarsadeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa soo jeediyay in qadiyada Soomaaliya iyo Kenya marka laga hadlayo saxaafadda dibadda loo saaro codsigaas oo uu shirgadoonka IGAD u gudbiyay balse madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa taas ganafka ku dhuftay sheegayna in warbaahinta ay goobjoog ka noqdaan shirka dhammaan inta uu socdo dib u dhac ayuu sababay xalinta arintaasi awgeed oo maanta barqadii lagu waday in uu shirka furmo balse abaara labadii duhurnimo ayuuna shirka furmay iyadoo khudbadaha inta badan looga hadlay sida COVID-19 loo xakameeyay gobolka iyo sidii dagaalka gobolka Tigreega loo fuliyay xogayaha guud ee IGAD ayaa khudbad uu furitaanka ka sheegay waxa uu markaasi soo hadal qaaday ee dalalka ku bahoobay IGAD inay markaasi horumarin ku sameeyaan dhexdooda madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo isna khudbad qaatay ayaa martigelinta shirka iyo madaxda inuu dalkiisa ku soo dhaweeyay kadib sheegay in ay mar walba isku tanaasulid mudan tahay arrimaha la isku hayo taas oo markaasi loo fasiran galay khilaafka Kenya iyo Soomaaliya in uu ka hadlayay ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdouk ayaa sheegay in IGAD markasta u taagan tahay walaalnimo la abuuro oo mudnaan markaasi siinaysa in la iskaashado madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa muujiyay in qadiyada Soomaaliya tahay mid biyo kama dhibcaana soo najeediyay xadgudubka Kenya ee dalkeena ku hayso ashtakadaas oo IGAD looga garnaqsan doono inta shirka uu socdo qaybihii hore ee wararka ayaa daawanaysan ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa kulan gaar ah kula yeeshay magaalada Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hor shir madaxeedkan caadiga ahayn ee IGAD ee maanta ka furmay dalka Djibouti
abiy axmed ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu la kulmay madaxweyne farmaajo oo ay ka wada hadleen xaaladda gobolka dhacdooyinkii ugu dambeeyey iyo sidii dalalka igaad u xoojin lahaayeen xiriirka u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa sidoo kale la kulmay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdalla Xamduug iyo madaxweyne ku-xigeenka Koonfurta Suudaan madaxtooyada Soomaaliya ayaan weli ka hadlin kulanka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Axmed oo iyagu markaasi saaxiibo dhow ah barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah xildhibaanada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa si kulul u weeraray madaxweynaha waqtigiisa uu sii dhamaanayo ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo ku tilmaamay dagaal ooge Farmaajo shalay isagoo baasuuke iyo BKM sita ayuu sidaan u banaan bixi jiray 2016 Cabdi Bilayaal Tuutaysan oo Generaal Caanood ilma adeer yihiin uu watana waardiyeyn jireen cid qabiil hebel ayaa tahay ama qoriga maxaad u sidataa tirina ma jirto Farmaajo maanta wuxuu leeyahay qabiil ayaa tihiin bastoolad ma qaadan kartaan banaanbaxna ma qaban kartaan ayuu yiri Mahad Salaad oo qoraal kulul ku weeraray madaxweyne Farmaajo qoraalkaas oo ku daabacay boggiisa Facebook xildhibaanka oo fikirkiisa ku cabiray soo dhaweyn 4 sano ka hor Muqdisho loogu sameeyay Farmaajo oo xilligaasi murashax ahaa isla markaana soo dhaweyntiisa ka qayb galeen ciidamo hubeysan ayuu qoraalkiisa ku soo gabagabeeyay kaliya taliye intan waa ka aqli badan yahay ee Farmaajo waa dagaal ooga soo daahay maanta ayaa waxa ay ku beegneed sanad guuradii afraad xilligii uu magaalada Muqdisho ololaha doorashada u yimid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo in ka yar 20 waa isagoo in ka yar 50 cisho ku noqday madaxweynaha Soomaaliya waa tahay markaana wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ayaa sheegaya in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku daabushay ciidamo hor leh halkaasi xilli ay wali taagan tahay xiisada kala dhaxaysa maamulka Jubbaland ciidamo laga dejiyay Gedo ayaa la soo warinaya inay isugu jiraan military iyo qaar kamid ah ciidamada koofi casta madaxtooyada kuwaas oo ku hubeysnaa hubka fudud iyo gaadiidka dagaalka waxa hogaaminaya ciidamada laga dejiyay gobolka Gedo taliye lagu magacaabo Liibaan Xasan Cali sida ilo xogogaal ah ay warbaahinta gudaha u sheegeen arintan ay qaaday dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dab ku sii shidaysa xiisada ka taagan gobolkaas ee kala dhaxaysa maamulka Jubbaland oo hore u dalbaday in ciidamada dawladda ee ku sugan gobolka Gedo gabi ahaanba halkaasi laga saaro dawladda federaalka ayaa iyadu wali ku sii madax adeegaysa gacan ku haynta gobolkaas iyadoo ciidamada dambe ay markaasi ku dari doonaan ama ay ka sii dari doonaan xaalka gobolka Gedo maadaama ay Jubbaland iclaamisay isdifaacid dagaal oo karana dawladda federaalka ee Soomaaliya wararka qaar oo helnayna waxay sheegayaan in ciidamadan ay weerar ku ekeyn doonaan dadka markaasi ka soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ku sugan xuduudda xiisada Gedo ayaa dhowr jeer oo hore laga soo saaray baaqiyo nabadeed ase yeeshee waxa markasta fashil ku soo gabagabooba dejinta xiisadaas oo uu wada hadalkeeda shuruud uga dhigay madaxweynaha Jubbaland saarista ciidamada dawladda ee gobolkaas ku sugan waxa kale oo xiisadan qayb ka noqonaysa carqaladaha ku gadaaman in doorashada soo socota ay ku qabsoomto waqtigeeda xilli mucaaradku ay qaadaceen guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay oo xaalad cakiran ka abuurtay dalka hagaag haatan aan fiirino madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu hambaliyay sareeyaasha saraakiil xigeenada alifleyda dableyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo qoysaskooda 77 ee guurada ka soo wareegatay aas-aaskii ciidanka booliiska Soomaaliyeed madaxweynaha ayaa adkeeyay in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay naftooda u huraan xaqiijinta amniga iyo xasiloonida dalka si muwaadiniinta Soomaaliyeed ay nabad ugu noolaadaan dalkooda ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa astaan qaran iyo midnimo waxa ayna u taagan yihiin xaqiijinta amniga dalka si dalkeenu u nabad iyo markaasi xasilooni ugu noolaadaan sidaasi awgeed waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa in ay ku garab istaagaan gudashada waajibaadkooda qaran ayuu yiri madaxweyne Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay qorshayaasha dawladda ay ku xoojinayso ciidamada kor u qaadida tababaradooda joogteynta iyo waliba sidoo kale kordhinta mushaarkooda iyada oo la hirgeliyay hanaan askari kasta uu si toos ah ugu helayo xuquuqdiisa madaxweynaha qaranka ayaa ku bogaadiyay saraakiisha iyo guud ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed doorkooda ku aadan kamira dhalinta qorshayaasha mugga weyn ee dib u dhiska iyo xaqiijinta amniga dalka
ugu dambeyntiina wararka inaga soo gaaraya gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in weerar lagu qaaday saldhig ciidamada AMISOM kuwooda dalka Ethiopia ay ku lahaayeen qaybo kamid ah gobolkaasi. dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaana weerarkan fuliyay iyadoo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta dagaalku soconayay. ciidanka Ethiopia ayaa madaafiic ku garaacay xaafado dad shacab ah ay deganayeen sida wararka aan ku helayno. inkastoo qasaaro markaasi dhimasho iyo dhaawac aan si rasmi ah loo soo tabin isla markaana la xaqiijin karin qasaaraha halkaas ka dhashay. waxa adag in la ogaado waxyeelada kala gaartay dhinacyada dagaalamay, waxaana xaaladda markii dambe la sheegay inay ku soo noqotay sidii caadiga ahayd. weerarada ku dhufo ka dhaqaaq ah ayay Al-Shabaab ku kordhiyeen fariisimaha ciidamada AMISOM ka degan yihiin gobolka Hiiraan. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena tan iyo warkan war la mid ah inta aynu dib ugu kulmi doono nabadgelyo.